koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sar page-kan Dulmidiid Media wareer kalmaano langi gawara ko weydiisada walsiye hooban dhalon hambalya u guuriya leere usuna u guuri biinti la kafada kadamba may waajibka ino masaasata hagada aana booran hagada sokorna habaalika hoob irtigan jaalja hafadheedo salaam alaykum sallallahu arnabi wa alaykum salaam hal bawashidna meelaha dhikada gabarteen oo la kafur istaahil jeeyo war hadalkaada ma faamile lawada kun konto isagaalka musharax madaxweynaha ahay war naga tag labada ku qotay sagaalka doorashada ku soo aadi mayse hadda baaraas gashay sarabta ina dawladda ugu shaqayso warnimayo ninkii dhawaan laga qaaday xubinimada guddiga isgaarsiinta ee Cali Shaamay waxa uu yiraahday wasiirka boosada isgaarsiinta maxkamad baan la korayaa sababtoo ah sharci uma marin inuu xubinimada iga qaado ayuu yiri war wasiir nabad iyo nolol ah maxkamad inuu hortag la masugaye ninkaas mudaniis iska raacdo warnimayo ana yaabsana ayaantu may baahabaday hilil iska gaadis oo shariiban waafaqsanayna diidid naha dabaroog diyaana gudoomiye gobolka Hiiraan Yuusuf Hagar Dabageed hilkii ka gaadi diidi gudoomiye gobolka Mudug oo xaafilka ka gaadayna diidi yaari kan aan damboy guddiga isgaarsiinta hay Cali Shaamay usuna hilkii loo gaadi diidi yaari taasib ma in sabab leh lambaylood aga gaar gacan laka hilka ka gaad lileeyo war Yuusuf Dabageed warkama hayside aniga warka hayay dhageyso baladweynuhu ku hadlo wuxuu yiri madaxda Hirshabeelle weerar bay ugu soo yihiin waan iska difaacaya dawladda dhaxana degdeg waa inay soo fargelisaa arrimaha Hiiraan hadii ay ku taliso xilka waa ka dagaya hadii kale waan sii joogaya buu yiri waxa kale oo yiri awal ba heshiis dawladda dhexe Hirshabeelle ay galeen ayaana liigu magacaabay war hadda Yuusuf Dabageed dhinaca nabadii nolol ka dhinaca Hirshabeelle ka miya war Hirshabeelle oo dhan baa nabadii nolol naga tag war hadda run sheegaysid waara shirka Nairobi aad ka soo rab war shimbirki wadaaje ay boobi ino buu meeli ka jarta lafta garan ino meeliseeda ka jarta war madaxweyne xaaf shimbir ma uusan sheegin waxa uu yiraahday gurigeyga Muqdisho hal sano ma aanan tagin cadaadana diyaarad baan ku dul maraa waa inaan dagaal galnaa buu yiri waxaasna uma dul qaadan karno dhimashaan ka xignaa waa inaan dagaal galnaa buu yiri war madaxda dawladda dhaxaba sabiib iyo caanoole diyaarad bay u raacday xaafays ka dulqaad war Axmed Madoobe bu'aala ma tage xaafays ka dulqaad waryaada way iska xiiqsantihiin dalka xaaladda taalaxanta iyo beenta ka daaya waxaana la yiri xilni loo igmaday oo hadaad aamin noqon weydo ahdigiyo hadaad ballamadii oo fikri weydo ha inkirin ama hadaad qabtay ee baka cabso gabaygan Donald Trump iyo ku socda war ajuuso abnitri oo wada ku bilaaw leeray Donald Trump mayna deersi war xarfaanay hergaba ku dhacaan lahay maqshan war Donald Trump anaga ka murqabne ila wuxuu ku tirsiyaa ciyaalka xaafadda ee Mareykanka abowga anaga siino afaaris naga dhaafano ad ku qaadano xariifoono war xisbiyada Soomaaliland haday doorashooyinkii ku heshiin waayeen hargeysana lagu qaban waaye cadaada ha keensadeen 20 daqiiqo lagu kala tuuraya war Soomaaliland war kaba ogidine haweeney ka hadasha arrimaha Iiraan iyo Mareykanka Iiraanna taageertay 10 maalmood ku dhawaad xabsi ay ku jirtaa war Soomaaliland ma ictiraafka meesha la galay war nimayo dhibaatooyinkii siyaasadeed dawladda Kenya Soomaaliya ku sameeynayay waa soo kordheen haddana waxay mamnuucday baabuurtii Mandheera iyo Nairobi isaga gooshaysay arrintuna waxay aad u saameysay gobolka Soomaalida ee Kenya war mooshiidii gobol Soomaaliyeed oo Kenya la tama jiro dhul Soomaaliyeed oo qayloodii barak weertoon koonfurka filo leeray hadii isku saarna meel Kenya maridadan ku qoy doonta war wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Francisco Madera waxa uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Mursal kulli arrimaha laga hadlayna doorashooyinka soo socda ayaa kamid ah gudoomiye Muuday shirkaas kama qayb galin miya warna mandala la kulmay isan latin baadi kordha u leeyahay hooyo godan ala ka fiiriyay hoos dhaw hoo leeyahay hooyo reebeen ala ka kontroolay may kala kulunkaas war maxaabiisi xabsiga dhac ku xirreed waxa loo wareejiyay xabsi cusub oo ku yaala kiiloomitir